السلام عليكم سو dhawaada asxaabta ku xiran YouTube-kayga Mahad Nuure Vlogs caaway waxa halkan lagu soo bandhigay hotelka Central dhiganahan oo lagu wanqalay Hill Agoon horeyna magaalooyin dhowr ah oo qayb ay ka tahay caasimadda dalka Muqdisho bandhigiisii labaad lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug qaybtii saddexaad ee bandhigiisan lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud buugan waxa qortay Shamis Mahad tahliil oo kamid ah qorayaasha Soomaaliyeed waana buug lagu magac daray Hill Agoon dabcan wuxuu xambaarsan yahay waa dareemi kartaa marka magacaas maqashid ustaadka qortay ayaa marti ugu ah soo dhawow adigoo sharaxaad kooban naga siinayo bal buugan iyo waxyaabaha ay xambaarsan yahay inta toddobaad ka gooban yahay iyo ujeedka aad u qortay waxyaabaha uu beesku ah runtii magacayga horta waa Shamis Mahad tahliil waan ku faraxsanahay inaan maanta bandhiga saddexaad ama bandhigii saddexaad oo ka qabsoomo magaalada Cadaado runtii aad ugu mahadcelinahay qof walba gacan ka geystay hadii aan hore u sii galay barnaamijka horta buugga Hill Agoon wuxuu ahaa buug in badan soo jiitamaayay lagu haminayo ama aan ku fikirayo inuu soo baxo buug ka hadlaya agoonta Soomaaliyeed maadaama aysan jirin maxaa la bulsho ama dad ama shakhsi u istaagay inay wax ka qoraan agoonta Soomaaliyeed anigu waxaan jeclaystay inaan noqdo qofka ugu horeeyay ee wax ka sameeyo agoonta ama buug ka qoro ama sheeko noqdo wax uun ka sameeyo Hill Agoon wuxuu noqday wixii ugu horeeyay ee agoonta aan ku garab istaagay sababihii dhaliyay inuu Hill Agoon soo baxana waxay ahayd xanuun ama dhaqnasho iyo dareen aniga qudayda aan soo maray kaasoo aan jeclaystay inaan xanuunkii gudaheega ku jiray inaan qoraal u bedelo si ay dad badan uga faa'iideystaan xitaa agoonta ay qayb uga noqdaan dadka faa'iideysan doona buuggeegan Hill Agoon waxa igu kalifay inaan qoro ama aan sameeyo waxay ahayd maadaama aan aabahay nasiib u yeelay inaan is aragno ama aan kelmadda aaba isticmaalo maadaama aabahayna aan ku waayay colaadda dalka ka jirta ay dhibaatadana wili ay hadda ilaa iminka taagan tahay agoon badan ay wadanka markasta ku soo biirayaan dhibaato kastoo dhacday sidaan ognahay waxa ku dhimaada waa raggaas oo maxaa laga yaabay inay qaarkood reerar iyo wax lahaayeen ilmo iyo markastoo dhibaato dhacdo waxa dhasho ama dhibaato ka soo gaarta waxa waaye agoonta ku dhalato marka sida darteed inaan dadkayga u iftiimiyo inay agoontu dhibaato badan ay la nool yihiin ama maxaa la colaad kastana ay agoon ka dhalan karto in dadkayga ku baraarujiyo si colaadda loo yareeyo agoontana loogu dhimriyo looguna naxariisto ayaa kalifto inaan qoro ama aan ku dhaqaaqo maxaa la qoritaanka buuggan Hill Agoon waa tahay dabcan sida aragno dhowr mowduuc ay ka kooban yahay buuggan yaa ka gacan siiyay adiga run ahaantii horta Allah subhanahu wa ta'ala ma hadda kood u sugnaatay suurtagalay inuu buugan soo baxo marka xigta waxaan u mahad celinayaa qof aan markasta inaan u mahad celiyo aan jecel oo asaga la'aantiis oo buugan qabsoomi leen ama oo soo bixi leen waa Cabdikariin Garuun oo maxaa la gudoomiyaha Muqdisho Library oo Muqdisho ku sugan yarkaas oo aad iyo caawiyay on ilaa inuu buugan maxaa la soo baxo ama oo qurux badnaada asaga ilaahay kusoo in asagu oo lahay ahmeediisa kuwad Cabdikariin oo markasta talo iyo tusaale iyo dhirigelinaysi iga siinay mana oo soo ahayn maxaa la qorayga buug maxaa la taftirkii moos iyana waxa ay macalinkayga kuwad sidoo kale waxa qayb ka ah ayaga inuu soo baxo buugan on maxaa la sheeg markasta qayb weyn ka qaadanay badhig kasta naadiga aan ku dhex jirkooda oo arkay qayb muhiim ah naadiga akhristayaasha xamar marka sidaas darteed buugan u dhameystiran waa buug ay isku tageen dadyo badan waa tahay dabcan waxaad ii sheegtay in uu yahay buuggan dareen adiga ka yimid ma jirtaa buugaagka ugu horeeyay oo soo bandhigtay horey oo u soo qortay run ahaantii mayo buug ugu horeeyay aan qoro wuxuu ahaa buuggan Hill Agoon kulli buug kalena kama dambeeynin oo laakiin buug asagiya mar dhow hadirtaan urtay marka asagaasan aan rajeynaya hadda inaan sii xoojiyo oo u sii sameeyo maxaa la research dhaba oo ama aan ka dhigo buug academic oo qof walba akhrisan karto si aan maadaama markasta aan bandhig u qabto oo buug saameyn gooni ku yeesho dadka madasha ama bandhigyada aan sameynayo waxaan rabaa marka inaan sii ogaado waxyaabo badan oo iga qarsoon aan sii baaro magacan buuggan uu xambaarsan yahay waa magac aad qof kasta uu dareemi karo macnaha uu xambaarsan yahay ma jirtaa ficilo bulshada iyo kala kulanta soo dhaweyn iyo talasiin kale oo kaaga timaado maadaama aad meel kale ku soo marigtay buuggan horey okay horta buuggan markii uu horeeyay oo soo baxayay ama aan inta aan soo bixin oo buug ahaan oo soo bixin waxa jirta inaan social media marketing uga sameeyay dhanka cover page oo kale ama coverka buugga maalintaas horta bilaabatay feedback in dadka bulshada dhexdeeda ka helo ayadoo dadku ay markastaba ay u arkaan inuu buug saameyn leeyahay ayagoo ku saleynayo coverka aan u doortay iyo sawir iyo magaca aan qaatay sawirkan saaran ilmaha yarka ilmeenayo
sababtaas ay kaliftay horta oo markaas ay bilaabatay in dadka feedback helo maalintii uu soo baxay oo bandhigiisa aan sameeyeen waxay ahayd maalin ka duwan maalmo kale bandhig oo farxadeed inaan sameysanaay aragtida ama ujeedkeena kood laakiin waxay noqotay madal oo ooyin iyo maxaa la qiiro sameysan bandhigiisa koodna waxaan qabtay 23 September ee sanadkan 2021 anoo ku qabtay caasimadda dalka ee Muqdisho munaasabadaas oo lambarkii la sugayay inay soo xaadiraan lambar ka badan oo soo xaadiray ilaa hoolku dadku ay meel fadhiistaan ay waayeen ayadoo markaas dhibaato badan ama maxaa la qiiro badan ama murug badan ama xanuun badan goobta dhexdeeda ku dhalatay ilaa ay dadku inay inta gaaraan inay markii buug iibsadeen ama dad kale soo ciwaanka soo arkay inay emailka kale fariimo igu soo diraan ay ku saleynayaan inay buugan uu yahay buug qiira ama wax dareena oo qof walba uu arkay inuu buug asaga gudihiisa wixii ku jiray oo buug soo qeexay ama uu soo koobay ilaa ay dadku ay dhahaan maxaa la buugan xilli loo baahnayo oo keenay xilli loo baahnayo yimid ayadoo sidaas ay tahay oo tii Muqdisho ama feedback Muqdisho aan aad ugu faraxsanahay hadana waxa dhacday inaan magaalada Galkacyo aan qayb ka ahaado Galkacyo Facebook Fair oo sanadkii u horeeyay la qabanayo kaasoo kale waxaan kala kulmay feedback qurux badan siyaasiyiin dhaqameed dhalinyaro maamooyin intaba inaan feedback kala ka kulmo ayagoo markaas oo arka inuu buuggan hil agoon oo yahay buug waqtigiisa ku yimid ama soo gaaray magaalada Galkacyo waqtiga loo baahnaa maadaama Galkacyo ahayd magaalo ka soo kabanaysa colaad iyo dhibaato badan oo agoon badan ay ku sugnaayeen magaalada Galkacyo marka buugayga feedback ha ahaato qoraal ha ahaato mid aragtiya ha ahaato mid sawir intaba wuu lahay